Diblomaasi Media ayaa daawanaysaan soo dhawaada. Dunidu waxay ku dhawaatay toddobaadkii hore mar kale marxalad adag oo kale inay gasho, iyadoo ay xaaladda qasan tahay, dhaqdhaqaaqyo ay socdaan, la baqanayo oo gudaha Iiraan ay ka socdaan banaanbaxyo aad u xoogan, dadkuna ay u muuqanayaan inay isku fidiyeen magaalooyin dhowr ah, ayaa mar qura xaaladii isbedeshay kadib qoraal uu soo dhigay bartiisa Truth Social Media. Madaxweyne Trump wuxuuna bedelay madaxweynaha lahjadii uu adeegsanayay iyo hadaladii adkaa iyo hanjabaadihii ku wajahnaa dhanka Iiraan. Balse miiska hoostiisa waxaa ka soconayay wadahadallo iyo dadaallo diblomaasiyadeed, iyadoo ay xaaladdu sidaasi ay tahay mar qura waxaa dhanka kale u weecday cabsidii la qabay iyo dagaal inuu ka dhici karo gudaha dalkaasi Iiraan, ama ugu yaraan Mareykanka uu halkaasi weerari karo. Madaxweyne Trumpna xilligaasi wuxuu sheegay in mas'uuliyiinta Iiraan ay joojiyeen in la daldalo ilaa iyo 800 oo ruux oo banaanbaxyaal ah. Sidoo kalena wuxuu yidhi waxaa la joojiyey dhibaatadii dadka banaanbaxa loo geysanayay, xaaladuna way degan tahay. Iyadoo xaaladdu sidaasi ay tahay ayaa dhinaca kale waxaa soo baxaya in dowladda Mareykanka ay dalabaad hor dhigtay dowladda Iiraan. Dalabaadkaasi oo la sheegay in dhanka Turkiga loo marsiiyey kadibna la gaarsiiyey wasaaradda arrimaha dibadda ee dowladda Iiraan. Hakan Fidan, wasiirka arrimaha dibadda dowladda Turkiga, ayaa intii xiisadii ay jirtay wuxuu telefoonka 2 jeer kula hadlay wasiirka arrimaha dibadda ee dowladda Iiraan, Abbas Araghchi. Sidoo kale dowladaha Ruushka iyo Pakistan ayaa la sheegay dhankooda in fariinta la gaarsiiyey. Haddaba maxay tahay inta aanu falanqaynta eegin 4 dalab ee la hordhigay dowladda Iiraan, mise kula tahay in Iiraan dalabaadkan ay aqbalayso? Inta badan ma aha wax cusub. Waatan koowaad waxaa laga dalbaday dowladda Iiraan inay soo wareejiyaan uranium-ka bacrimisan ee barnaamijkooda nuclear-ka. Waatan labaad waxaa laga dalbaday in marnaba aysan dib ugu laaban bacriminta barnaamijka nuclear-ka ee dalkooda. Waatan saddexaad waxaa laga dalbaday inay burburiyaan gantaalada balastiga, iyo tan afraad oo ah inaysan dhisin awood ama wax ugu yaraan halis ku ah gobolka iyo awoodaha gobolka ka dhisan, micnaha inaysan sii qalabaynin oo aysan sii dhisin kooxo la mid ah Xuutiyiinta dalka Yemen, Xisbullah iyo kooxaha gobolka ku sugan sida Ciraaq iyo Suuriya. Inkasta oo Iiraan mar ay ku xooganeyd gudaha dalka Suuriya, hadda sidii hore ma aan xaalka. Dhammaan dalabaadkaasi waxaa la sheegay marka in la hordhigay dowladda Iiraan, waxaana fariintan loogu dhiibay dowladda Turkiga. Dadka falanqeeya marka xaaladda gobolka oo warbaahinta Al Jazeera la hadlay waxay yiraahdeen dhammaan dalabaadkani waa sidii uu jeclaan lahaa ra'iisul wasaaraha Israa'iil Benjamin Netanyahu, isla markaana uu madaxweynaha dowladda Mareykanka Trump isagu uu soo qaaday kadibna Turkiga loo dhiibay. Turkigana uu sidaasi ku gaarsiiyey dalkaasi Iiraan. oo Netanyahu wuxuu doonayaa bay yiraahdeen inuu ammaan uu helo, inkasta oo sidii hore uu ka duwan yahay marka la eego marxaladii ugu dambeysay iyo sida Netanyahu uu u dalbaday in dib loo dhigo weerar lagu qaado dowladda Iiraan. Turkiga dhankiisa wuxuu aaminsan yahay oo uu aad uga soo horjeedaa waqti xaadirkan weerar in lagu qaado Iiraan. Maxaa yeelay Turkiga weerar hadda lagu qaado dalka Iiraan wuxuu aaminsan yahay inuu khatar weyn ku noqonayo amnigiisa, sidaas darteedna marxaladda ay gaari karto heer aan la xakameyn karin. Dhankiisa Turkiga wuxuu aaminsan yahay dhibaato kasta oo Iiraan soo gaarta in guud ahaan gobolka ay ku baahi doonto, waana in gobolka laga fogeeyaa buu yiri mushaakilaad kale oo hor leh, maadaama kuwii hore ilaa iyo hadda xal loo weysan yahay sida magaalada Gaza iyo dagaaladii ka dhacayay sanadihii la soo dhaafay. Falanqeeyaasha dhankooda waxaa kaloo ay qabaan inay aad u adkaan doonto in military ahaan loo rido xukun 40kii sano ee la soo dhaafay ka talinayay gudaha dalkaasi Iiraan, oo qaarkood waxay yiraahdeen macquul ma ahan. Fariintan oo Iiraan la gaarsiiyeyna waxaa laga sugayaa jawaabta ay ka bixin doonaan, maadaama 4 dalab la hordhigay. Dadkana waxay leeyihiin way adkaan doontaa Iiraan in 4tan qodob ay aqbasho, waqti ayna qaadan doontaa jawaabta Iiraan. Maxaa yeelay fariintan dhammaantood macnaha qodobadan oo idil ama dalabaadka la hordhigay oo dhan waa kuwa ka hor imaanaya amniga qaranka ee dalkaasi Iiraan iyo istiraatiijiyadda dowladda Iiraan marka laga hadlayo gobolka, inay qayb ka noqdaan isu dheelitirka awoodeed ee gobolka Bariga Dhexe. Marka la eegana siday wax u socdaan, aad bay u adkaanaysaa Iiraan in dhammaan qodobadan ay aqbasho, sidoo kaleetana ay ka tanaasusho awoodda keliya oo ay leedahay oo ah barnaamijkooda nuclear-ka. Haddii ay ka tanaasulaanna way adkaanaysaa Iiraan inay awood sii yeelato oo ay sii dagaalanto. Dadka qaarna reer galbeedka markaad eegto waxay leeyihiin waxaa la joogaa waqtigii gudaha Iiraan laga shaqeyn lahaa oo la kala furi lahaa ama ugu yaraan la kala daadin lahaa nidaamka adag ee isku xiran ee gudaha dalkaasi Iiraan, maadaama nidaamkan uusan ahayn mid hal ruux oo keliya awoodda gacanta uu ku hayo oo ay isku xiran yihiin qaybaha kala duwan ee maamulka.
marka dalka Iiraan la joogo. Sidoo kale khubarada amniga waxay aaminsan yihiin in Mareykanka iyo Israa'iil iyaguba aysan si weyn u dareyneynin in waqti xaadirkan la bedelo maamulka guud ee dalkaas ama mudaaharadadu ay sii socdaan, balse waxa diiradda la saarayo oo laga shaqeynayo waa in Israa'iil amni ay ka heshaa oo ay ka nabad heshaa dhankaasi iyo Iiraan. taasina waa sababta keentay dalabaadkan oo dhan in loo gudbiyo. waxay ka qaybta hoose ee wala wadaag fikradaada ku aadan qodobkan aad iyo aad baad uma haysantihiin. dalka Syria ayaan markan u weecanaya. dowladda uu hogaamiyey Ahmed al-Sharc waxay raadinaysaa dowlad midnimo qaran oo dalkaasi ah. caqabado badan ayuu Ahmed al-Sharc la kulmayaa marka la eego sida uu wax u doonayo iyo gudaha caqabadaha ka jira. laba go'aan ayuu qaatay Ahmed al-Sharc, dhinac inuu wada hadal uu ku xalliyo, dhinaca kaleetana dagaal uu la aado haddii wada hadalka ay diidaan. markaad eegto Israa'iil waxaad moodaa in jeebka uu kaga soo ritay kooxihii darwiishka ahaa maadaama wadahadal uu la galay, dhankaasina wadahadal ayuu ku xalliyey. laakiin dhanka iyo calawiyiinta iyo kooxaha kurdiyiinta waxaad moodaa inuu dagaal la galay. calawiyiinta waa shiicada ku nool deegaanada Latiqa la yiraahdo iyo dhanka xeebaha, oo toddobaadyo ka hor waa tii weerar uu ku qaaday deegaanadaas dhanka xeebta ah, halkaasina xasuuq badan loogu geystay dadkii calawiyiinta ahaa ee lagula dagaalamay. waana midda keentay in warbaahintii xitaa ay baahiso qorshe abaabul ah oo ay wadaan kooxaha saraakiisha ahaa ee ku jiray nidaamkii Bashaar al-Assad, kuwaas oo qaarkood la sheegay dalalka deriska inay u carareen. kurdiyiinta ama ciidanka Qasri la yiraahdo oo sunniyiin ahna dhankooda wada hadal ayuu la furay, sidoo kaleetana dagaal ayuu dhinaca kale kaga furay maadaama uu soo saaray warqad uu kaga hadlayo xuquuqda ay leeyihiin kurdiyiinta, dowladda xuquuqdooda inay ilaalinayso, loona baahan yahay in ay ogolaadaan in dowladda ay maamusho deegaanada gacanta ay ku hayaan. laakiin kurdiyiintii way diideen warqadaas. dadkii shacabka ahaana waxay ku qanciyeen madaxweyne al-Sharc in midnimo uu ka shaqeynayo, isagana uu yahay ruuxa tanaasulaad badan sameeyey. laakiin hogaamiyaasha kurdiyiinta ay diidan yihiin in ay dowladnimada qayb ka noqdaan. maxay isku hayaan haddaba kurdiyiinta iyo Ahmed al-Sharc? laba arrin ayaa ugu muhiimsan waxyaabaha ay isku hayaan. waa tan koobaade in ciidanka kurdiyiinta lagu daro ciidanka qalabka sida ee dowladdaasi Syria oo hubka laga dhigo, iyo cidda maamulaysa ceelasha shidaalka iyo goobaha dhaqaalaha ee gobollada ay gacanta ku hayeen kurdiyiintana in la caddeeyo. goobaha ugu muhiimsanna waa ceelashii shidaalka iyo halka dhaqaalaha uu ka imaanayo marka la eego halka ay ku sugnaayeen ciidanka Qasdi. waxa go'aan lagu gaaray sanadkii 2024 bishii Maarso in heshiis la gaaro oo wax walba miiska wada hadalka lagu dhameeyo. laakiin ciidanka kurdiyiinta waxaad moodaa taasi inay diideen, oo shakhsiyaadka hoggaanka u haya kurdiyiinta markay warbaahinta joogaan waxay isu muujinayaan inay ka shaqeynayaan danaha dadka kurdiyiinta, laakiin hoos micnaha miiska wada hadalka marka la isugu yimaado shakhsiyaad ahaan ama shakhsiyadooda dhaqaalaha ay doonayaan iyo dantooda oo kaliya ayay ka hadlayeen. waana taasi meesha uu Ahmed al-Sharc ka arko aragtida ah inuu warbaahinta la wadaago qoraalna uu soo saaro in xuquuqda kurdiyiinta ay dowladda ka shaqeynayso, loona baahan yahay in ciidankan ay ogolaadaan in dowladda ay wax waliba ay maamusho. bal ka waran ruux adiga ku metelaya marka uu kula joogo oo warbaahinta uu la hadlayo inuu danta guud ahaan ee bulshadaas inuu micnaha inta badan ka hadlo oo yiraahdo bulshadaasi xuquuqdooda ayaan u doodaya, laakiin marka miiska uu tago tiisa oo kaliya uu ka hadlo oo yiraahdo intan aan u baahanahay iyo qodobadan aan u baahanahay. taasi ayaa gudaha Suuriya iminka ka taagan. wararkii wanaga intaas.